السلام عليكم وحسن kusoo dhawaada saaxiibayaal barnaamij yar oo aan ka diyaarinay qaabka loo xareeyo DV Lottery dadka Soomaalida inta badan ay u yaqaanaan waqti nasiibka runtii barnaamijkan oo ah barnaamij qofka u sahli kara inuu si fudud ku helo fiisa Mareykanka qofka haduu yahay Soomaali meel walba dunida ka joogo barnaamijkan kuma xirna barnaamij dhaqaale lagu qaato maahan waa barnaamij free ah isdiiwaan gelintiisa ay lacag la'aan tahay qofkii fursad ay u saamaxdana uu ka faa'iideysan karo barnaamijkan sidaan hore uga hadalnay barnaamij yar aan ka diyaarinaa jira barnaamijkan ka diyaarinay asxaabta inta badan waa ay arkeen oo qaabka asagoo qoraal ah haddana waxaan isku howli doonaa inaan ka diyaarino barnaamij yar oo video ah qaabka loo xareeyo DV Lottery ama lottery dadku waxay u yaqaanaan barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa qaabka loo xareeyo sida loo maro waana af Soomaali waxaan rajeynayaa inay dadka dhan ka faa'iideystaan bulshada Soomaaliyeed qaasatan asxaabta groupka oo runtii su'aalo badan naga soo weydiiyay qaabka loo xareeyo barnaamijkan insha Allah waa ka bogan doontaan intaan u guda galin waxaan idin kula talin lahaa asxaabta inta badan barnaamijka macluumaadka inaad diyaarsato macluumaadka barnaamijka lagu xareeyo sida masawirka oo kale tusaale ahaan caawa waxaan ku shaqeyn doonaa masawirkayga oo ujeedin sawirkan picture-kayga dan asagaan inta badan dadka waxay su'aalo naga soo weydiiyaan picture-ka oo runtii u shaqeyn waaya qaabkii picture-ka iyo waxa laga rabay picture-ka hadaan u guda galno wax yar waxaa leedahay properties markaa dhahdid then waxaa sii aadaysaa details markaa sii aada meeshaas waxaa ku qoran sawirka 600 times 600 waana waa image ID-ga ama dimensionska meesha loo dimensionska waxaa ku qoran 600 times 600 sawirkaaga inuu saas ahaado waa sawirka loo baahan yahay oo ku shaqeynayo haddii aan guda galno barnaamijkeena DV Lottery ama qaabka la isu diiwaan geliyo oo af Soomaali ah marka hore waa inaan barnaamijka furnaa kadibna aan aragnaa qaabka barnaamijka loo xareeyo oo af Soomaali ah haddaba aan Google ka furno aan ku qorno DV Lottery marka DV Lottery ku qortid isla markiiba waxa ku soo baxaya linkiyo badan runtii waxaa jira dadka inay iska ilaaliyaan oo baahan linkiyo badan oo waxaa jira ama website-yo badan oo dadka lacag ka qaata ama lacag weydiiya ama lacag ku xira haddii aad aragto qof lacag kugu xiray waxa ogaataa inay fake tahay ama scam waxsaas camal ah ha ku dhiiran inaad lacag ku bixiso barnaamijkan Lottery waa free wax lacag la iskama rabo qofka intuu process-kiisa ka dhamaanayo barnaamijkan waa lacag la'aan isdiiwaan gelintiisa sidaan waan arki doonaa waxaa ku dhufanaynaa electronic diversity and visa lottery waa linkigaas aan ku dhufanaynaa waa linki weyn meeshan waxaan uga jeednaa waan soo guda galnay website-kii iyo qaabkii loo xareynayay runtii waxaan dadka kula talin lahaa intaan barnaamijka aadan xareynin marka hore inaad akhriso instructionska oo sanadkan waxyaabo yar laga bedelay oo sanadii hore aynan ahayn waxaan dadka ku dhiiran lahaa inay akhriyaan instructionska si ay uga badbaadaan inay qaladaad badan ku dhacaan instructionska waa kan guduhu ku jira waa arki kartaa qofkii ay u fududahay uu akhrin karaa qofka instructionska iyo qaabka loo xareyna balse aan ka gudubno time-ka oo nagu yar aan gudaha u galno meeshan sanadii hore waxaan arki jirnay meeshan photo tool bay kusoo dareen oo waxaa ku jiri jirtay photo validator ama qaabka sawirka inuu qofka iska tijaabiyo intuusan ku xareynin hadda waa ay ka bedeleen oo qaabkan baa yimid oo inuu qofka sawirkii iyo uu arko laakiin aan ka gudubno ayadana wax badan ma sameynayso haddii aan guda galno entry-ga haddaan bilowno entry form-ka haddaan bilowno qaabka sidaan baa usoo galaysaa website-ka entry form-ka ayaa leedahay begin entry waa ku dhufanaysaa meeshan gudaha u galaysaa intaadan gudaha u galin wuxuu ku weydiinaya wax la yiraahdo authentication code-kan waa gelinaa code-ka waa kana meesha ku qoran meeshaasuu ku qoran yahay code-kaasaa gelinaysaa code-ka markaa geliso waa ERW5
kadib waxaa leedahay submit. meeshaan waxaan ku aragnaa wuxuu noo soo furay electronic diversity visa entry form uu noo soo furay. waa ujeediin waa qayb dhowr baart waaye, dhowr qaybood waaye oo runtii dhowr qaybood waaye. inta sidaa ujeediin waa aad u badan tahay, mid walbana waan macnayn doonaa. barnaamijka waxaan ku diyaarin doonaa aniga mid test mid ahaan gelinayna ama tijaabo ah oo dadku siday uga qaataan tusaale oo qofkan ugu fududaata inuu xareeyo barnaamijkan isagoona wax dhibaato ka marayn. waana af Soomaali, waana barnaamij free ah. meeshan waxaa ku qoran part 1 intern information. waxaa gelinaysaa intern informationka waa name-ka, waa first name, waa last name or family name-ka, ama first name ama middle name. waa 3 box, saddexdaada magac baa gelinaysaa, saddexdaas box. midka hore aan ugu hormarno last name-kaaga ayaad gelinaysaa. last name-kayga waa aniga magacaygaan geliyay. first name-kaagana waa gelinaysaa. waxaa kaloo gelinaysaa your middle name. meeshan genderka meesha way fududahay. genderka yacni waxaa laga wadaa qofka maxaa tahay, ma dumar baad tahay mise rag. meeshan male iyo female. male haddaa female tahay, gabar haddaad dumar haddaad tahayna female baa ku dhufanaysaa. male aan dhahno waa meeshaas waxaa tahayba ku shaqsigaa tahay, dumar ama raggaa ku dhufanaysaa. numberka saddexaad birthday-kan waa xilligaa dhalatay, waa maalinta, day, month and year. waa saddexdaas box, waa day, month and year. waa saddexdaas box aa ujeedaan. day xilligaa dhalatay inta badan Soomaalidu waxaa la yiraahdaa waa dad wada dhashay 1 January. balan ku baraaweyno 1 January oo aniguna runtii Soomaaliya ka mid ah, anigu bishaasaan dhashay 1 January. year-kaaga iyo ama sanadka waa sanadka intana sanadka dhalatay 1988. runtii aad baan u yarahay u maleynayaa. aan gelino. runtii dadka inta badan mushkilad waxay ka qabsataa saddexdan number oo ugu dambaysa. inta badan ay dadka Soomaaliya jooga ay ku wareeraan, laakiin waan macnayn doonaa oo maadaama waxaan ku base gareynaynaa qofka inuu Soomaaliya joogo oo kale. waa number 4 aan maraynaa. number 3 waxaa kasoo gudubnay birthday date-ka, waa day, month iyo year. waa bisha iyo waa maalinta iyo bisha iyo sanadka. numberka 4 city where you were born. the city where you were born waa meesha aad ku dhalatay. city magaalada aad ku dhalatay, where you born magaalo kale ku dhalan kartaa ama wadan kale ku dhalan kartaa ama meel kale waa ku dhalan kartaa. laguma dhihin meesha aad u dhalatay. waa city where you were born, waa meesha aad ku dhalatay. meesha aad ku dhashay Soomaaliya, let's say Muqdisho. waa meesha aad ku dhalatay baa gelinaysaa. meeshana waxay noqonaysaa boxkan numberka 5aad. aniga Muqdisho hadda ku qor, waa tusaale ahaan hadda Hargeysa ku dhalatay Hargeysa ku qoraysaa, hadda Boosaaso ku dhalatay Boosaaso, Kismaayo, Baydhabo, meesha Soomaaliya ahaataba meesha ku dhalatay, magaalada ku dhalatay baa ku qoraysaa, meesha Soomaaliya ka ahaataba. number 5 country where you were born, wadankii aad ku dhalatay. kulay dadka inta badan waa Soomaali, barnaamijkana Soomaaliya u qaabilsan yahay. qofka wadanka aad ku dhalatay waa Soomaaliya. meeshaas s baa gelinaysaa, Soomaaliya ayaa gelinaysaa. Soomaaliya aan gelinay. city where you born Soomaaliya baan gelinay. waa ka boxkaas kale Soomaaliya ku jira. number 6 oo maana numberka 6 country of eligibility for the DV lottery. inta badan waa lagu wareeraa. number 6 country of eligibility for the DV program. eligible ka wadanku ah waa Soomaaliya. runtii Soomaaliya eligible ah oo wadamo badan baa laga xiray, laakiin wadanka eligibility-giisa aad sheeganaysid oo yacni loo ogol yahay lottery. meeshan waxaa ku qoran your country of eligibility will normally be the same as your country of birth. inta badan waxay noqon kartaa ku leeyahay meesha eligible-ka wadankaaga meel lamida meesha ku dhalatay, yacni meesha ku dhalataa soo sheegtay ayadana eligibility u maadaama aad u dhalatay. but your country of eligibility is not related to where you live. macnaha xiriir lama lahan ku dhahay country meesha aad ku nooshahay xiriir lama lahaana sax.
meesha rabtaa ku noolaan kartaa laakiin Soomaaliya ku dhalatay xiriir lama lahan marka waa un wadankaagi asaga eligible. If you were born in a country that is not eligible for the DV program, please go to the explanation of the country of eligibility. haddii wuxuu leeyahay meeshaan eligible aadan u ahayn yani meeshaan kali ku siisiyaa macluumaad badan uga ogaato. hadda soo gaabino waqtiga ugu yar dartiis meeshaan dadka Soomaaliya jooga waxay dooranayaan number 6 country of eligibility for the DV program waa Soomaaliya. meeshaan waxa leeyahay marka wuxuu leeyahay are you claiming eligibility based on the country where you were born? muxuu dhahay ma waxaad sheeganaysaa eligible ku tahay wadankii aad ku dhalatay meesha ku dhalatay wadankeeda miyaa eligible u tahay? yes because of waxaan soo dhahay Muqdisho ku dhashay. yes aboxas ku deynaysaa. no hadaa dhahdana meesha ya sheegaysaa wadankii ay eligible kaaga wadan kale u noqona marka maadaama Muqdisho ku dhalatay ee Soomaaliya tahay boxkaas yes aan leenahay. meeshaas muxuu ku dhahay if you not you must enter the country from which you are claiming eligibility. haddii aan no doorano waa inaan gelinaa wadanka eligible ka laakiin hadda yes aan leenahay. meesha wuxuu yiri if not haddii ay yes ka bodo no dhahdo you must enter the country where from which you are claiming eligibility. marka ka gudub Soomaali yes aan dhahnay waa ka gudbaysaa boxkaas. inta badan meesha dhibaatada ka taagan tahay waa meeshan intern photograph ayadana mushkilad badan ka taagan maadaama photograph-ka uu mushkilad badan ka taagan tahay dadka waxaan kula talinaa dadka inay photo iska saxaan ama masawirka. meeshaan waa masawirka number 7 intern photograph. sawirka desktop uu diyaarsan yahay waa soo qaadanaysaa marka sawirka choose file waa soo choose gareynaysaa number masawirka waa kana waa soo qaadaysaa masawirka open ayaa leedahay. runtii masawirkaaga hadduu uu saxan yahay marka hadhow continue markaan dhahno uu sheegi doonaa masawirka inuu saxan yahay in kale. hadda waxaan soo gelinay magacii waa soo gelinay genderki waan soo gelinay waxa ahayd may rag ama dumar. birth date waa soo gelinay iyo xilligan dhashay. city where you were born meeshaan ku dhashay waa soo geliyay. country where you were born wadankii aan ku dhashay waa Soomaaliya. inta badan dadka waa Soomaali. country of eligibility for the DV program waa Soomaaliya ayadana waa soo gelinay. if because of wuxuu ku dhahay meesha ku dhalatay haddii xiriir la leedahay yes dheh haddii aad xiriir la lahayn no dheh kadibna wadanka sheeg eligible ka maya aniga Soomaaliya eligible yes leedahay waana ka gudbay boxkan. intern photograph ka gelinaysaa ama masawirka hadduu masawirka qaldan yahay linkigan meeshaas aad ku dhufanaysaa photo tool ku geeyna sawirka waa saxanaysaa. masawirkiina waa soo qaadna uu ku jira waxaan noo cadeynaa inuu ku jiro meeshaas numberka ku qoran waa masawirkaaga meeshaas uu ku saaran yahay. haye aan imaana numberka 8 waa mailing address waa addresska lagu soo mail gareynayo. mostly dadku waa Soomaalida mail address ma lihin oo dhibaatadana waxa ugu wacan wadanku nidaam iyo kala dambeyn iyo address iyo waxba ma lahan oo dadku inta badan wadanku waa nidaamkaas ma lahan. laakiin qofka aan Soomaaliya joogin wuxuu gelin karaa wadanku joogo nidaam kale addresskiisa uu ku buuxin karaa. meelaha qaar waxaa jira waxyaabo optional la dhaho optional macnaheedu waxa waaye qiyaar u leedahay inaad ka tagto iyo inaad buuxiso. haddii aad ka tagtana laguma qabsanayo haddii aad buuxisana waa sidii la rabay waa la soo dhaweynaa. meeshaan optional waxaan uga jeednaa waa laba meel address line 2 iyo in care of labadaas waaye waan ka tagi karnaa laakiin hadda kan koowaad baan ka tagnay in care of ma naqaano. mailing address aniga aan ku buuxiyo midkan let's say of Soomaaliya joogo kala Muqdisho aniga meeshaan ka imid degmada Hodan ay ahayd ayadaan ku buuxino ayadaan ka haystaa information badan. address 135 30 street line 2 ayadana waa optional waa ka boodi kartaa meesha optionalka waxba kuma qortay. line 2 30 street town meeshaan waxaa dhihi kartaa city waa Muqdisho dhihi kartaa. state province waa state waa district country province state banaadir iska dhaheena meeshaas. Muqdisho soo qornay waa state kana waa banaadir ay Muqdisho.
marka zip code kana waxaan gashanaynaa Soomaaliya 252 waa iska gelin kartaa Soomaaliya labadaas line waa ka tagi kartaa haddii aad wax haysana waa buuxin kartaa 30 street waa jidka 30ka meeshaan waxaan gelin karnaa Hodan district degmada Hodan 35 30 street Hodan district iyo mara degmada Hodan intaan sidaan u buuxin kartaa haddii aad meeshaas joogtid haddii aad meeshaas joogina qaabkii ugu roon kana ka tusaale qaadan kartaa mostly Soomaaliya nidaamkaas ma lahan laakiin let's say aan ku tijaabino aan usoo gudubno marka post code-ka waa 252 post code anaga xaafado ma lahan laakiin 252 Soomaaliya saas ka dhigi karta country waa wadanka waa Soomaaliya runtii waa soo gudubnay number 8 waan ka soo gudubnay haddaanu imaano number 9 oo ah country where you live today waa wadanka aad ku nooshahay macnaheedu maaha number 9 liisa loo fiirsado number 9 macnaheedu maaha wadanka aad u dhalatay maahan waa meesha aad ku nooshahay country where you live today wadanka aad ku nooshahay maantadan ama xilligan la joogo aad xariinaysid baad sheegaysaa let's say Soomaaliya ku noolahay Soomaaliya hadda joogtid Soomaaliya dooranaysaa haddaadan ku nooleen wadan kale dooranaysaa wadanka aad ku nooshahay your phone number haye phone number-kaaga meeshaas baa gelinaysaa waa ka soo gudubnaa number 10 waa number-kaaga gelinaysaa plus 252 615 waa number-kaaga gelinaysaa it is optional waa ka tagi kartaa haddaa rabto waa gelin kartaa laakiin waxaa fiican inaad gelisid meeshaan email address-kaaga aad gelinaysaa number 11 baa maraynaa email address-kayga waa kan waa igu diyaarsan yahay tartiib asagaana ii soo galay email address-kayga waa igu diyaarsan yahay confirm email address ku celi email address-kaaga number 2 alifaan soo aadno wuxuu ku leeyahay what is the highest level of education you have achieved as of today education-ka ama waxbarashada meesha ugu sareyso aad achieve karaysay ama aad ku gaartay baad sheegaysaa meeshaan 12 number 12 what is the highest level of education have you achieved as of today haddii meeshaan optiono badan baa jira mostly waa primary school only ina primary school dhigatay qofka waxaa lagu xiraa markuu lowriga xareynayo inuu work experience inuu leeyahay ama shaqo ama xirfad shaqo uu leeyahay ama wax equivalent oo u dhigma ama mucaadala ama inuu leeyahay waxbarasho haddii aad waxbarasho leedahay primary school hadday tahay dugsi dhexe high school no degree hadday tahay high school or degree vocational school some university courses university degree some graduate level course master's degree some doctorate level courses doctorate degree intaas mid aad leedahay aan iska dhahno high school degree mostly Soomaalidu waxay isticmaalaan wax la yiraahdo high school certificate ama shahaado dugsi sare iyo high school degree waa isku mid wax farqiga u dhaxeeya male Amerikaanka u yaqaan high school degree weena option-kaasaan dooranayna number 2 number 3 haddii aad arday tahay jaamacad dhigta ama aanan dhammaynin jaamacadda waxaa dhigi kartaa some university courses waa numberkaas hoose haddii aad university dhammaysan university degree aad leedahay meeshaas so aan ka gudubno high school aan dhahno waa meesha ugu hooseysa waxbarashada aan kasoo qabano number 13 haddii aadan guursan single tahay unmarried baa leedahay what's your current marital status guurka iyo barnaamijkaas aan soo gudubno number 13 waa ka soo gudubnay unmarried waa meesha waxa ugu simbalsanaan ka bilaabayna number 14 number of children caruur imisa leedahay maadaama aad dhahda unmarried 0 meeshaas geliilan maadan wax caruur ma leedahay markaan saas u dhamayno waa iska soo jeegaraynay overall aad checking kusoo sameynay ayaga dhan haddii ay waxaaga ku saxan yihiin all ay ku saxan yihiin waxaa leedahay continue
uu noo qaatay runtii wuxuu naga diidanaa numberkaas oo America aniga hadda waxaan ka xareynayaa oo ku suganahay Mareykanka marka ma ogola maadaama kulley waa arrin la xiriirta security issue marka post code ka saas uu diiday sidaan filay let's say numberka ku baaga adig laakiin hadda Soomaaliya joogtid waa inaad 25262521 waxa rabto baa gelin kartaa continue markaan dhahay wuxuu ii sheegay inaad if you need to go back then make correction do not use the back button on your browser hadduu wuxuu ku yiri haddii aad rabto haddii aad wax qaladay ama inaad rabto dib u laabato adeegsan midaan waxa adeegsata go back to part 1 ku laabo part 1 ku laabo hadda rabto waa noo saxan yahay wax naga qaldan ma leh waxayna dhan waa saxan yihiin sidaan soo aragnay oo meeshan waxaan uga soo hadalnaa part 1 internal information oo name-ka magaca genderka waxa tahay rag ama dumar birth date-ka ama xilliga dhalatay city where you were born magaalada ku dhalatay number 5 country where you were born wadanka ku dhalatay country of eligibility for the DV program wadanka eligible ku ah Soomaaliya ayaa meesha data no markaan dhahnay Soomaaliya ayaa automatically ay ku soo baxaysay automatic internal photograph sawirkaaga muxuu ku dhaaf photograph received sawirkaaga waa helnay haddii uu qalad ahaan la yeeli lahayn mailing address-ka wax qalad ah hadda kama jiraan city where you will live today automatically data waxaan dhahnaa waxaan ku noolaa Soomaaliya laakiin aniga country where you will live today meeshan ku noolaa waa Mareykankan ka xareeyay xaggaas sida ku qoran automatically soo qabsaday ma gelin aniga systemkaas sida waafaqsan numberka waa kaas numberka meesha ku qoran yahay email address-ka meeshaas ku qoran yahay waa ujeedin waxa kale oo ku qoran number 12 what is the highest level of education you have achieved as of today waa high school-ka what is your current marital status ma guurka waa unmarried number of children wax aruuran no waa hubtaa haddii aad hubto dan waxaa leedahay continue xaqiiqatan markaan continue dhahnay waxa uu noo soo saaray warqadan horeyna waa uga hadalnay warqadan waa warqad aad u muhiim ah dadku qaar waxay yaqaanaan confirmation code ama confirmation page-ka confirmation code submission confirmation entry received entry-gaaga waa la receive garay waa la helay entry-gaaga wuu baxay meeshan confirmation number-kaaga waa kaas confirmation number-ka year of birth xilliga dhalatay digital signature dadka qaar baa waxay isweydiiyaan digital signature warqadan waa muhiim warqadan waa xafidan kartaa haddaa rabto print out waa printer gareysan kartaa warqadii intay ku diyaarsantahay hadduu computerka printer kugu xiran yahay directly print out haddii uunan computerka printer kugu xirnayn warqadan waa inaad xafidataa qaabka aad ku xafidan kartid computerka haddaa mobile ama computer haysatid waa sawiran kartaa haddii aadan haysana computerka ayaa waxaa samaysan kartaa print screen ama shaashada inta ka sawirata waad xareysan kartaa optionna bannaan waaye warqadani waa muhiim xilliga markii la gaaro sanadka 2016 insha Allah May 5 ayay soo bixi doontaa natiijada intaana natiijada la shaacin waxaa laga rabi doonaa confirmation number-ka year of birth iyo internal name-ka saddexdaas waa muhiim digital signature-kana automatically ayuu u qabsan doonaa waa hawl uu system-ku garanayo barnaamijkeen intaan ayaan kusoo gabagabaynaynaa I hope you guys ina kooda bogteen waxaan rajaynaynaa in barnaamijyo badan aan ka diyaarin doono sida dadka loo saacideeyo wixii su'aal ama la xiriira barnaamijkan waa nagu soo weydiin kartaa page-keena Somali DV Lottery waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.